cabdulqaadir waad u soo joogtay dilkiisa oo xaadir baad ahayd markii uu taakeeye dilaya soo ma markaaseeto meydkiisa ayaa dadka qaaday ayaa la joogay. warkii hore war soo dhaaf markaana waa cabdulqaadir maxamed walaayo oo ka mid ahaa shaqaalaha wasaaradda warfaafinta xilligii 1991dii isaga oo ninkani da'diisu ay ku dhowdahay 80 sano sida uu asaguba muuqaalkiisa ku cadeynayo wareysiga ah afkiisa waxa uu ka qirayaa in uu goobjoog u ahaa markii uu dilayay allaha u naxariistay cabdulqaadir cali ciid oo ka mid ahaa wariyaashii uu dilay Sufyaan. cabdulqaadir walaayo oo ka sheekeynaya taakeeye sababtii uu u dilay cabdulqaadir ciid allaha u naxariistay ayaa sheegay arrimo aad u naxdin badan kuwaasoo dhagahagu aysan jeclaysanin. haddaba muuqaalka wareysiga ah ee laga qaaday cabdulqaadir walaayo ayaan idinla wadaagi doonaa iyada oo xaalka taakeeye Sufyaan Afarxaas leh meel uu cirib iyo jaan u dhigay la la'yahay sidoo kaleetana xaaladiisu ay noqonayso mid aad u sii xumaata oo marba marka ka dambeysa markhaatiyaashu soo badanayaan. haddaba inta aanan idinla wadaagin waxaan idinka codsanayaa inaad muuqaalka noo leegaraysaan si meel dheer u gaaro sidoo kaleete aad janalkana kusoo biirtaan adiga oo sabskaraib saaranaya gambaleelkana furanaya si ay kuugu soo dhacaan kuuna soo gaaraan warbixinada iyo muuqaalada aan halkan soo gelino. soo noqod wanaagsan xaalku ma sahlana oo markaana waxay maraysaa qofkii saddexaad oo sheegaya inuu goobjoog u ahaa markii uu leenayay wariyaashaasi balse wariyahan haddartaan hadli doona ee cabdulqaadir walaayo waa uu ka duwan yahay labadii horete ee soo hadashay isaga oo cabdulqaadir walaayo uu ka sheekeynayo mid ka mid a dilalkii uu geystay Sufyaan 1991dii xilligaas uu asagu goobjoog u ahaa dilkaasi uuna meydkaas meesha uu ka qaaday balse cabdulqaadir walaayo waxa uu sheegay oo uu xaqiray in uu asagu goobjoog ka ahaa markii la dilayay afartii wariye ee ka horreysay cabdulqaadir ciidle alle ha u naxariistee waxa uu sheegay in uu cabdulqaadir ciidle dilkiisa goobjoog u ahaa balse afartii wariye ee kale ahaa abuukar iyo mahad iyo cabdi shiikh cali iyo sidoo kale taxaange alle ha u wada naxariistee waxa uu sheegay inuu dhegta uun ka maqlay uu ka maqnaa magaalada muqdisho xilliga dilkaasi dhacayay uusan ku sugnayn goobta shaqada. Sufyaan taakeeye ayaa ilaa haddeertaan warbaahinta mar dambe ku soo laaban siday u soo baxeen cadeymahan iyo sidoo kaleete raggan markhaatiga cad ku furaya isaga oo markiisii horeete baraha bulshada aad loo hadalhayay markii uu wareysiyada bixinayay kuwaas uu ku haystay calanka Soomaaliya. haddaba maxay kula tahay sababta uu warbaahinta iyo carrada dhan uga dhuntay Sufyaan Afarxaas leh? inta aanan arrinkaas faranqaynteeda aanan u gelin waxaad ila soo daawataa mid ka mid ah dilalkii uu geystay Sufyaan taakeeye 1991dii iyadoo uu ka sheekeynaya cabdulqaadir walaayo qaabka uu dilkaas u dhacay iyo sida wax walba u dhaceen. cabdulqaadir waad u soo joogtay dilkiisa oo xaadir baad ahayd markii uu taakeeye dilaya soo ma markaaseeto meydkiisa ayaa dadka qaaday ayaa la joogay. maalinkaasna sidee wax u dhaceen waqti maxaa ahayto 8 saac maalmeed ahayd maarta yani waqti qorraxda banaanka taalo oo waxba qarsamayn. okay sidee wax u dhaceen marka arrintaasi u dhacday? waatan warfaafinta shaqaalaha markii ay shaqada ka rawaxayaan waati wasaaradda banaankeeda baabuurta ku sugaan ma garatay cabdulqaadir allah u naxariista iyo gabar sida badan israaci jireen isku xaafadahayeen ayaa jaranjarta wasaaradda warfaafinta laga galo albaabkeeda jaranjarta koowaad isaga oo taagan oo baabuur sugaya gabadha markaas inay ma jirto kole ma aqaano ayaa waxaa yimid ma ahayd reerkan taakeeye iyo nin kaloo la socda xaajiyad noocan maxaan ku sheegaa oo dagaalka banaanka ah maaragtay wata marka waxaan sheekada aniga aan ku maqlay maalinkaas horta ninka waa xanuunsanaa sida maaragtay aan maalmahaas maqlayay xanuun bronkiitan iyo maxaas ayaa hayay taakeeye baa xanuunsanaya markaa marka wasiirka warfaafinta lacag u soo qoray oo yiri maxaa ay to maamulka lacagta ka qaada lacagtan ma garatay waa uu soo baxay Ali Maxamed Cabdullaahi nin yiraahdo oo wariyaash ku xiran jira markii kana noqdeen director of administration maamulka lacagta loo dhiibay ayuu u tawlatay waa dhintaas Allah u naxariisto si caadi ah u dhintay
markuu u tegey uu lacagtii weydiiyey wuxuu yidhi niyow adeer maanta lacag ma haye ii soo noqo adiga waa ka tegey maalinka dambeetuu yimid wuxuu yidhi niyow weli khasnada lacag kuma jirto ninkan waa baxay agaasimaha guud xafiiskiisuu tegey markuu meesha tegey isla maxaa ta wuxuu ku soo noqday kii lacagta markii wuxuu u qaatay in la mirmirina sida aan qiyaasaa runtii waa baxay baabuurkuu ku noqday baabuurka qoriga ku dhici jiray oo baabuurka lagu wardiyeynayo uu soo dafay ninkii la socday oo baabuurka aan force aan u malaynay qaraabo yihiin ama si uun isla hayaan arkaysaa gaari ku waday ay qoriga isla qabsadeen isla qabsashadii oo isla qabsadeen ayaa wargafashadii xabaddii way faqatay cabdullaahi baabka taagan oo runtii aan loola qasdin haddii laakiin waqtigiisaa meesha ku okaa ayaa madaxa xabad ka qabsatay weliba waxaa jira wax lada iskaajo oo maxaan ku sheegaa meensolaha albaabka meesha maaragta warambada oo qarcan wala markay ku dhacda baashi soo noqodkii ayaa xabadda ninkan haleeshaa dhigay muuqaalka waa uu sii socdaa. Cabdulqaadir Walaayo waxa uu hadda ku nool yahay dalka Sweden, waxa uuna ka mid ahaa shaqaalihii wasaaradda warfaafinta xilligaas ee 1991. Cabdulqaadir Walaayo waxaa hadal hayay wariyihii horete ee koowaad kaasoo ahaa midkii sheegay inuu markhaati cad ahaa oo halkaas joogay marka uu dilka geysanayay Taakeeye, kaasoo lagu magacaabayay Cabdisalaan Axmed Jimcaale. Cabdisalaan ayaa wax badan ka sheekeeyey, balse waxa uu sidoo kale sheegay inuu goobjoog ahaa Cabdulqaadir Walaayo. Se maanta Cabdulqaadir Walaayo waa uu soo fariistay, waxa uuna ka sheekeynayaa sida ay wax u dhaceen. Cabdulqaadir ayaa sheegay inuusan afarta dil ee horete inuusan ka warqabin, uu dhegta un ka maqlay. Ninkan Taakeeye ahna uu meesha ku sugnaa uu joogi jiray, balse waxa uu sheegay inuu goobjoog u ahaa uuna xaadir ahaa markii uu dilka u geysanayay Cabdulqaadir Cali Iidle, Allah u naxariiste, iyo sababtii uu u dilay. La sii daawo muuqaalka Cabdulqaadir Walaayo. qoriga isla qabsan ninka grilletada ayaa kulle gacanta ku dhacday runtii qof ku tuuraba laakiin ninkan wuxuu ka reebayay inuu ninkan qoriga wasaaradda la soo galo ninka markuu meesha ku dhintay aniga rig soo xambaaray kama lahayn laakiin maxaan sameeyey waxaa la gelay jaranjarta wasaaradda hoosteeda meelaha meydka la dhigay aniga xafiiskaygaan tegey daah xafiiska igu yilaan soo hooyey meydka ku daboolay. By that time ninkan markii shilka dhacay waa baxay wasaaradda waxay leedahay laba albaabka dambe oo dhinaca madaxtooyada xigaa ayuu Taakeeye ka booday dhinaca madaxtooyadana mataqaanaa kulle USC baa meesha joogay marka maalintaas ninkaas igu dambeysay araggiisa waxaa marka igu wada markaan arkayo oo la leeyahay maaragta yani Abu Sufyaan iyo Abu Magiis iyo waxaas leeyahay iyo calanka jamhuuriyadda Soomaaliya iyo Talyaani inuu keenay inuu yahay koox la yiraahdo maxaan ku sheegay tala wadaag waxaas soo dhanba haddaan maqlayaa runtii marka taasna waa another history oo aan haddii la igu weydiiyo aan ka bixi doono marka arrinka saasoo u dhacay wixii kaleeto oo dheeraad ahana Cabdisalaan xaal kuma sahlana oo sheekadu waa isbedeshay oo afkiibaa juuqda wada gabay markii ay soo baxeen wariyayaal fara badan oo horey uga shaqayn jiray 1991 wasaaradda warfaafinta, iyagoo oo markhaati cad ku furaya in uu dilka geystay Sufyaan Afar Xaasle. Haddii aad geysatid dhiig muslim waxaad tahay kii mar un soo baxa, isaga ayaana afkiisa isku soo shaacbixiyey Sufyaan Taakeeye. Balse maanta xaalkiisu waa isbedelay oo waxa ay ka maraysaa yaa ku qariya un ilaan dembi aad gashay cidi kaaga harimaysee. Dadka qaar qaybta commentiga waxa ay ku qorayaan in 1991 Soomaaliya dilka wax caadi ka ahaa oo dadku isleenayeen, balse ninkan aan wax dembi ah loo qabsan, ayna jiraan dad dilay oo ilaa hadda nool. Balse qof kasta oo ay ku cadaato qof inuu dilay, haddii uu qofkaasi si xaq darraha u dilay qofka kaleete, waa mid uun dembigiisa bannaanka la keeni doono. Waxaa weli socda baaritaano dheer oo lagu sameynayo Sufyaan Taakeeye. Haddaba arrintan marba marka ka dambeysa soo badanaysa, kuwaasoo ah markhaatiyaashii markaas joogay ee ku markhaati kacaya inuu laayay ummaddaas Soomaaliyeed. Waxay kula tahay wixii fikirkaaga ah qaybta commentiga waa noogu reebi kartaa. Haddaba muuqaalka noo laagareeya si meel dheer u gaaro, hana naga hilmaaminina inaad channelkeena ku soo biirto si aad ula socotid xogaha iyo muuqaalada degdega ah ee halkan soo gelino. Intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.